maanta oo ay taariikhdu tahay bishii Janaayo 3 2020 waxaan rabnaa inaan halkan maaragtay ka gudoono qabanana liiskii xildhibaanada ugu horeeyay ee maamul goboleedka Galmudug kaas oo ah liiskii xildhibaanada hore looga soo heshiiyay dhexmaray hormuudinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ah qoondadii loo qoondeeyay in ay ku yeeshaan baarlamaanka Galmudug ee cusub ee la dhisayo muddada 4 sano ah ee soo socota kaas oo ahaa 20 xildhibaan annagoo tixraacayna heshiisyadii hore loo galay oo ku astaysan nambaradoodii iyo ay sumadahoodii waraaqdan ay ku astaysan yihiin waxaan halkan ka sheegaynaa maanta aan hadaan guddigii maamul dhisidda iyo doorashooyinka Galmudug in aan liiskaas aqbalnay liiskaas oo soo maray dhammaan shuruudihii la iska rabay ka mid noqoshada maamul goboleedka Galmudug xildhibaanadiisa intaas markii laga tago waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo cid walba oo ka soo qayb qaadatay in aan maanta meeshaan joogno imaano in heshiis laga gaaro waxyaabihii khilaafaadkii jirjiray in muddaba soo ragaadinayay maamul goboleedka Galmudug waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa qaybtii ay ka soo qaateen nabadeynta iyo maamul dhisidda iyo bulshooyinka Galmudug abaalka iyo wanaagga ay ku leeyihiin hormuudinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ayaan si gooni uga mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinaynaa dhammaan bulshada reer Galmudug qaybaheeda kala gedisan oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanku oo ayaguna qayb weyn ka soo qaatay aqbalayna in maaragtay arintan ay ku dhamaato xal nabadgeliyo oo ayagoo fiirinaya danta iyo maslaxadda ummadda reer Galmudug waxaan mahad kale u jeedinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ayaduna qayb muhiim ah oo libax ka soo qaadatay in ay maanta meesha aan marayna aan soo gaarno iyo dhammaan cid walba oo lug ku lahayd maaragtay insaan ay wuxuu dhacaan waxaan rajeynaynaa hadduu alla idmo in aan hadda wixii ka dambeeya maadaama in muddo ahba aan u soo xayirnayn isku soo dhaweynta iyo wada xaajoodka iyo in arintan xal nabadeed lagu dhameeyo waxaan hadda wixii ka dambeeya aan gudageli doonaa dhamaystirka inta noo dhiman iyo xulista xildhibaanada noo haray ee 69 xildhibaan ah oo aan rajeynaynaa haddii alla idmo inaan sida ugu dhaqsiyeeda badan aan ku soo dhamaystirno waxaan ugu cudar daaranaynaa bulshooyinka reer Galmudug maaragtay daahida iyo dib u dhacyadii tirada badan ee ugu yimid annagoo aan arkaynin in dabcan markasta inay tahay in maaragtay la soo gaaro meesha aan maanta marayno ayaan uga cudar daaranaynaa waxaan rajeynaynaa haddii alla in inta dhimanna aan sida ugu dhaqsiyeeda badan aan u soo dhamaystirno